adduunyadu waa nolol, noloshuna waa imtixaan. Bini'aadamka oo dhan kuma wada jecla, haddana waxaa jira kuwa ku gafa ujeedadooduna ay tahay inay ku liidaan oo ay ku dhaawacaan. Ogow, wax walba oo ay kaa sheegaan ma qeexayso waxaad adiga tahay, ee waxa ay qeexaysaa shakhsiyadda qofkaas uu yahay. Wax walba oo ay kaa sheegaan dhag jalaq ha u siin, ee dantaada garo oo danahaaga ka raaco. Waxaad ogaataa bini'aadamka iilkuma waayo. Haddaad tahay qof afgaaban oo dantiisa raacda, waxa ay ku leeyihiin inaga daakan waa gooni u socod. Si walba u wanaagsan tahayna waayi maysid qof wax kaa sheegaa. Taasina waa waxa nolosha aad nooshahay micnaha u yeelaya. Noloshu waa imtixaan. Waa imtixaan la doonayo inaad ku baasto ama aad ku dhacdid. Ardaygu markii loo sheego inuu imtixaan galayo, waxa uu sameeyaa inuu casharadiisii hore ku celiyo. Sababtoo ah waxa uu doonayaa inuu imtixaankaas ku baaso. Adna waa sidaas oo kale. Adduunyadani aad joogto waa imtixaan aad ku jirtid. Waxaadna ku dadaashaa sidii aad ugu gudbi lahayd imtixaankaas. Waa inaad raadisaa sidii aad Allah tabaaraka wa tacaala aad ku raaligelin lahayd oo dantaada garo. Waxaad ogaataa haddaad tahay qof dantiisa raacda oo horumarkiisa ku mashquulsan, naftiisana kobciya, waayi maysid kuwa ku xasdaa oo jallaafa ku dhiga. Waxayna doonayaan inay horumarkaaga ka horjoogsadaan, burburiyaanaysa fikradaha wanaagsan ee qalbigaaga ku jira. Ha noqon qof ay bedelaan mujadaha hadallo ee ka soo baxa bulshada uu ku dhex nool yahay. Noqo qof hami leh, ku dadaalaysa siduu u hirgelin lahaa inuu rumeeyo hamigiisa. Rajo wanaagsan ku noolow.